halkan waxaan ku qaadan doonaa cashar computer basic ah marka hore waxaan ku bilaabi doonaa waxyaabaha iska basic ah qaabka computerka aad hadii aadan aqoonin aad u isticmaali lahayd ayaan ku bari doonaa insha Allah marka casharka hore qaadinayna waxa weyn horta waxyaabo xitaa qofka computerka isticmaala oo isaga baahan yahay inuu ogaado ayaa ku jira marka casharka hore waxa weeyaan text bar kan qaabka soo loo qoriyo ama text bar ka hoose qaabka aad u qorin lahayd marka hore waxaad sameynaysaa halkan baad tagi kartaa startaada kadib waxaad halkan ku qoraysaa control panel baad tagaysaa click baa leedahay kadib waxaad tagaysaa appearance and personalization markaad appearance and personalization tagto waxaad tagaysaa taskbar navigation markaad timaado halkan ayaa waxaad ka samayn kartaa inaad halkaa furto ay ku qoran tahay automatic hide the text bar in the desktop marka haddii aan furo wuu isqarinaya haddii aad arkayso markaan mouse ka soo dulqaado haddii aan ku celiyana wuu soo baxaya marka qaabkaa waad u samayn kartaa waxa kaloo haddii aadan adoon control panel waxba doona tagin waxaad samayn kartaa inaad halkan tagto right click aad tiraahdo kadib personalize aad ku dhufato aad ayer tagto taskbar aad tagto kadib aad halkan ka furto ayer open off and on halkan oo tagista labada qaabba waad u qarin kartaa waxa kale oo inoogu xiga waxa weeye inaad bedesho location-ka uu ku yaalo taskbar-kaagu iminka haddii aad arkayso wuxuu igu yaala xagga hoose bottom ayuu igu yaalaa sideen u dhigi karaa bidixda midigta iyo xagga sare labadaba aan u dhigi karaa marka waxaad samaynaysaa halkan baad tagaysaa ay ku qoran tahay text bar location on screen marka waxaan waxaad ka wada imanaysaa waxa weeyaan haddii aad iska soo xidho halkan baad tagaysaa kadib setting baad tagaysaa setting markaad tagto halkan waxaad imanaysaa personalization ku qoran tahay kadib waxaad tagaysaa text bar halka ay ku qoran tahay kadib waxaan imanayaa halka ay ku taalo text bar location on screen on soo furaya kadib haddii aan imika top doorto waxaad arkaysaa text barki waxa loo wareejiyay xagga sare haddii aan doorto right xaggan midigta ayaa loo wareejinayaa haddii aan doorto left waxaa loo wareejinayaa xaggan bidixda marka qaabkaas ayaad u bedbedelan kartaa waxay nagu xigta markaa qaabka aad u bedeli lahayd desktop background-kaaga ama sawirkan qaabka aad uga bedeli lahayd marka waxaad tagaysaa windows kadib waxaad tagaysaa setting waxaad tagaysaa marka halkan ay ku taalo system halkan waxaan u jeedaa personalization baa ku noqonaysaa kadib background-kaas waan ku doonaa marka haddii aan kan doorto imika oo aan halkan imaado taskbar-kayga right click idhaahdo show the desktop haddii aan idhaahdo waxaad arkaysaa sawirkan ayaa yaala haddii aan markaa ku noqdo oo aan sawirka kan doorto haddana oo aan kadib right click idhaahdo show the desktop haddii aan idhaahdo haddana kan ayaa yaala kadib qaabkaas ayaad u bedbedelanaysaa background-ka oo kaygii ayaan iskaga ceshanaya kadib haddii aan imika right click show the desktop haddii aan idhaahdo kan ayaa yaala waxay noogu xigta markaa create new folder qaabka new folder aad u samayn lahayd marka new folder waxaad samayn kartaa adoo halkan dhex joogana waad samayn kartaa faylkaaga oo imika haddii aan halkaa right click idhaahdo kadib aan new tago folder baan dooranaya qaabkaas markaa isagu samaysa folder baan right click baan leeyahay kadib new baan dooranaya folder baan dooranaya kadib halkaa waxaan doonaa ku qoranaya kadib folder cusub weeyaan haddii magacu iga khaldamo waxaan magaca uga bedeli karaa waxa weeyaan inaan right click idhaahdo kadib aan imaado rename kadib aan halkan waxaan doonay ku qorto saasoo kale aan ku qorto haddii aan doonayo in aan delete gareeyo folderka waxaan delete gareyn karaa right click idhaahdo kadib aan doorto delete aan doorto control z haddii aan idhaahdo oo aan soo celiyo haddii aan doorto waxaa kaloo delete gareyn karaa delete keyboard-kayga inaan click idhaahdo oo laga saaro marka waxaa kaloo aan delete gareyn karaa waxa weeyaan haddii aan control z idhaahdo iminka markaan delete taabto wuxuu tegayaa recycle bin-ka marka waxaan sameynayaa si aan recycle bin-ka uga boosiyo shift iyo delete baan isla taabanaya kadib waxaan odhanayaa yes si permanent ayaa markaa loo delete gareynayaa oo aan la soo celin karin waxay noogu xigo waxa weeye recycle bin-ka laftiisa marka recycle bin-ka halkan aad ka tegi kartaa imika haddii aad halkan arkayso waxay noogu yaalaa this pc marka waxaad ka tegi kartaa waxa weeyaan inaad faylkan iska soo laabto haddii aan right click idhaahdo anoo jooga desktop-ka right click haddii aan idhaahdo kadib aan view idhaahdo aan doorto show the desktop icons xaggan desktop icons baa yaala marka recycle bin-ku waa ka halkan inoo yaala marka halkan baan double click leeyahay waxaan u soo gelayaa markaa gudaha recycle bin-ka marka recycle bin-ku waxa weeyaan meesha faylasha delete garayso computerkaaga aad ka saarto lagu kaydiyo si hadhow haddii aad u baahato aad recover odhan karto oo aad u soo ceshan karto iminka waxaa ku jira 4 shay ayaa ku jira recycle bin-kayga haddii shay aynu si fiican isla fahmi karaan aan soo geliyo aan iska idhaahdo refresh kadib aan iyo haddii aan tago aan show aan iska laabo oo aan tago faylkayga halkan haddii aad imika arkayso halkan haddii aan imaado imika aan desktop-ka tago halkan haddii aan imika ku sameeyo new folder aan tago ama aan ka dhigo intaan kan iska delete gareeyo aan ka Latin font ay ku qoran tahay haddii aan delete idhaahdo imika wuu iga baxay
marka haddii aan recycle bin-kii tago recycle bin-kii haddii kan yahay haddii aan iminka refresh idhaahdo halkan ama haddii aad arkayso Latin font ayaa igu jirta marka waxa weeyaan wixii aan computer ka soo delete gareeyay halkan uu soo gelayaa oo si toos ah loogama saarayo hawada marka waxaan sameeynaa waxa weeyaan kanoo kale new folder kaasoo kale iminka haddii aan right click idhaahdo restore ayaan odhan karaa oo waan soo ceshan karaa iminka haddii aan restore idhaahdo recycle bin-ka oo ka baxay laakiin haddii aan kusoo noqdo desktop-kaygii waxaad arkaysaa halkan new folder ayaa yaala haddii aan doonayay in aan ka boodsiiyo recycle bin-ka gebigiisaba waxaan sameyn karaa inaan taabto shift plus delete kadib aan yes idhaahdo iminka haddii aan tago recycle bin-kaygii waxaad arkaysaa wax new folder ay kuma jiro haddii aan refresh idhaahdo xitaa wax new icon kuma jiro ama new folder kuma jiro waxaa kaloo soo ceshan karaa iminka kan haddii aan u baahdo inaan soo ceshado right click baan leeyahay kadib restore baan taabanayaa marka waa la ii soo celinayaa folderkayga haddii aan ka soo noqdo halkan waxaad ku arkaysaa Latin font oo ay ku jirtaa waa tan hooseysa haddii aad arkaysaa Latin font waxaa kaloo jirta qaabka aad empty uga dhigi karto recycle bin-kaaga aad waxa ku jira oo dhan uga saari karto si aan markaa u empty gareeyo empty aan uga dhigo recycle bin-kayga waxaan tegayaa recycle bin tools haddii aan tago halkan waxaad ku arki kartaa empty recycle bin-ka waxa ku jira oo dhan ka wada saar marka halkan waxaad ku arkaysaa restore all items waxaan gebigoodaba halkii aan kolba xabad right click inta aan restore ka odhan lahaa ayar baan tegay recycle bin tools kadib gebigoodaba waa la restore gareynayaa waa la igu wada celinayaa computerkayga waxa kaloo la sameeynaa inaan marka wada saaro wada delete gareeyo haddii aad ku arkayso empty recycle bin marka maxaan odhanayaa empty recycle bin haddaan doorto iminka halkan waxaa la soo dhigay message box haddii aad arkayso are you sure you want to permanently delete these 4 items waxa lagu leeyahay ma hubtaa inaad wada saarto aad si permanent ah u saarto oo aadan hadhow soo celin karin itemska inaad u saarto marka haddii aanay wax muhiim kaaga jirin oo aad doonayso inaad empty tiraahdo yes baad iska leedahay marka anigu yes ma odhanayo yes laakiin haddii aad tiraahdo empty ayuu ku noqonayaa oo uu ka wada baxaya haddii aan iminka file-kan oo kale right click idhaahdo kadib aan restore taabto waxaan kale waan saari karaa marka haddii aan tago recycle bin kadib aan empty recycle bin idhaahdo oo aan yes doorto file-asha dhan waa iga baxeen mana soo celin karaa iminka wax file ah oo iga baxay oo soo celin karaa ma jiro waxay noogu xiga waxa weeyaan inta change the date and time sidii aad u bedeli lahayd date-ka iyo time-ka marka markasta steps weyn maraynaa kadib waxaan ku tusayaa sida fudud ee aad u edit garan kartaa haddii aan view tago aan show desktop icons iska qariyo waxaan tegayaa markaa start ama Windows-ka kadib waxaan halkan ku qorayaa control panel baan qorayaa kadib waan dooranayaa markaan control panel-ka soo galo waxaan tegayaa qaybta ay ku taalo language and region ayaan ka raadinayaa marka halkan waxa isku hoos jira haddii aad arkayso title sare iyo in yaroo ka hooseysa marka halkan ayaad ka eegaysaa language and region ama waxa ku qoran clock and region marka click baan leeyahay clock and region markaan doorto kadib waxaan sii dooranayaa waxa weeyaan click date and time ayaan dooranayaa ama date and time halka ay ku taalo ayaan dooranayaa si aan date-ka iyo time-ka u bedelo marka haddii aad arkayso halkan ayuu soo saaray waxaan dooranayaa change date and time kadib halkan baan ka bedelayaa date-ka iyo time-ka marka maanta waxa weeyaan 20 July 2022 waxaan u noqon karaa xaggan bishii ka horeysay June 2deedii halkan haddii aad arkayso saacadda ayaa igu taala oo waxay maraysaa 2:44 marka haddii aan imika horta date-ka ku dayaan oo ka idhaahdo kadib aan okay si idhaahdo halkan haddii aan imika tago hoose haddii aad arkayso June 2deedii baa igu taala 2022 marka qaabka aad u bedelayso waxaan haddii imika date and time taarto waxa weeyaan change and date and time haddana waxaan saan soo noqonayaa July 20 ayaan ka dhiganayaa kadib okay baan leeyahay okay baan haddana leeyahay imikana date-kii wuu isbedelay oo July 20 ayay noqotay intaa waxay noogu xiga waxa weeyaan change your primary mouse button labada mouse button-ka haddii aad ogtahay wuxuu kala leeyahay right click iyo left click oo laba la saaro labada farood oo lagu kala isticmaalo marka haddii aan right click ka doorto waxaad arkaysaa setting-kan ayuu soo saarayaa right click markaan doorto si aan refresh u doorto waa inaan doortaa left click right click ayaan dooranayaa kadib refresh waxaan dooranayaa left click haddii aan laabanta ku celceliyo waxba soo saari maayo waa tayada wax lagu click karayo marka waxaan sameeynaa waxa weeye si aan labada button isu daba mariyo oo aan mid kale doorto waxaan tegayaa start button-kayga kadib waxaan tegayaa setting markaan tago waxaan tegayaa markaan imaado aan Windows tago kadib aan setting imaado ayaa waxaan ka sii tegayaa devices haddii aad arkayso devices markaan doorto ayaa waxaan ka sii dooranayaa mouse-ka markaan doorto marka halkan waxa igu yaala haddii aad arkayso select your primary button-ka qaabka aad u bedelayso marka haddii aan imika left haddii aan right ka dhigo oo aan imika
soo xidho ima soo xidhay hadii arkayso markaan left click daarto laakiin hadii right click saa u doorto halkii right click oo imika setting iga soo bixi lahaa ima soo baxay laakiin hadii aan left click doorto setting way soo baxay kadib right click hadana right click marka labadii button ayaynu isdaba marnay marka hadii aan setting ku noqdo setting kan ku noqonaya kadib halkan waxaan ka dhiganayaa left baan dooranaya marka left hadii aan imika doorto waxaan tegayaa halkan kadib hadaan right click doorto setting ayaa soo baxaya hadii aan left click doorto waxbay soo bixi maayaan halkaas ayuu marka cashirku noogu joogayaa waxa weeyaan computer introduction inta wixii ka dambeeyo waxaan dhigan doonaa insha Allah taala waxa loo yaqaan computer application-ka oo ah software-iska Microsoft Office-ka aynu qaadan doonaa insha Allah aad iyo aad waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi